بسم الله الرحمن الرحيم لما دhalin Soomaaliyeed ku soo dhawaada macadka Soma muuqaalkani waxaan ku baranaynaa sidee loo sameeyaa upgrade nidaamka FortiGate firewall hadda waxaan haystaa firewall real ah labka firewallkaasi versionka uu ku shaqeynayo hadda waa 7.2 latest versionka hadda aan muuqaalka duubayana waa 7.4.3 sidee marka aynu u sameyn karnaa upgrade aynu labkani ku qaadanayna marka hore waxaan wada galaynaa firewallka hadda waxaan la leeyahay connection وكان firewallka saad arkaysid hadaan tago statuska waxaad arkaysaa versionka firewallkani waa 7.2 waa version 7.2.2 firewallkan serial numberkiisa waa kan FGT waa 4DF firewall waxaan tageynaa marka sidaan u update gareyno dhanka system aan tageynaa kadibna waxaan sii tagayaa meesha ku qoran tahay fabric management aan kili ku siinayaa marka halkan kili ku siiyo waxaad arkaysaa meeshan waxa ugu qoran haddadan versionka aan isticmaalayo waa versionka 7.2.2 laakiin waxa available ah versions kale oo ka dambeeyay version 2 ayaa available ah saadirta waxaan leeyahay marka right click baa halkan ku siinaya right click waxaan leeyahay marka upgrade markaan upgrade dhaho waxaan fiirinayaa marka all upgrades ayaan fiirinayaa meeshan waxa meeshan hadda kaaga soo muuqda marka no upgrade available waan yara sugayaa waxa suuragal ah inuusan internetka ku xirnayn haduu internetka ku xiran yahay wuxuu ii soo saarayaa marka upgradeska available ka marka aan test gareeyo firewallkan inuu internetka ku xiran yahay in kale waxaan leeyahay ping to 8888 sida muuqata hadda wax internetka kuma xirna marka waxaan siinayaa marka internet connection ayaan siinayaa waxaan ku xiriirinayaa marka internetka هذا internet ayaan ku xiray sida waragna marka interfaceskiisa waxaan leeyahay get system interface physical one waa interfaceku internetka kaga xiran yahay hadda waxaan ku xiray khadka internetka haddaan isla aragna marka command-ga mar kale hadda waxaad arkaysaa marka inuu internet connection leeyahay meeshan baa imaanaya refresh ayaan leenahay wax yar ayaa laga yaabaa inuu soo yara daaho okay isla markiiba uu soo qabsaday marka qalabkaaga internetka ku xirto wuxuu ku saarayaa versionkaaga iyo versionka aad upgrade ku sameynaysid wuxuu ku leeyahay waxa available ah versionkan baa available ah 7.2.7 laakiin inaga waxaan ognahay inuu available yahay version ka sii dambeeya 7.2 waxaan leenahay marka right click baa ku leeyahay upgrade ayaan leeyahay kadib waxaan tagayaa marka all upgrades ayaan kili ku siinayaa waxa available ah latest waxa weeyaan waa 7.4.3 kan ba hadda doonaya in u boodo click baan ku siinayaa markaan click ku siiyo waxaan leeyahay direct update to version 7.4 ayaan click ku siinayaa kadibna waxaan leeyahay confirm and backup configuration kadibna continue wuxuu ku sameynayaa backup wuxuu kaaga qaadayaa current configuration kaaga maadaama qalabka internetka ku xirtayna wuxuu isku dayayaa marka in uu soo download gareeyo versionka 7.4.3 markuu soo download gareeyo kadib wuxuu sameynayaa reboot wuxuu marka systemka ku soo kacayaa latest versionka ah 7.4.3 waa yar sugeynaa marka intuu ka soo download gareysmayo way kale ayaa jira qalabka halka uu asaga soo download gareynayo versionka 7.4.3 waxaa sameyn kartaa sidatan adiga baa account kaba soo qaad waxa account ku leedahay account gudaha Fortinet ama support Fortinet website-ka hadda aan yar tagno support Fortinet waxa account ka samaysanaysaa halkan account-kaaga waa inuu support haystaa marka account-kaaga gasho waxa soo download gareynaysaa adiga versionka aad doonaysid marka soo download gareyso waxa sameynaysaa sidatan hadda uu iga diiday internetka waxaad arkaysaa inuu fashil dhacay muusan awoodin inuu soo download gareysto waa mushkilad iga haysa dhanka internetka kaliya waxaan leeyahay upgrade halku asaga si direct la internetka kaga soo download gareysanayo waxa sameynaysaa sidatan baa sameynaysaa waxa tagaysaa meesha ku qoran tahay file upload ayaa tagaysaa browse ayaa leedahay hore waxa usoo degsatay adiga latest versionkiiba hore usoo degsatay marka waa ku import gareynaysaa kaliya ana horeba usoo diyaariyay versionka latestiga waa kan waa 7.4.3 kan baan open ku leeyahay kadib meeshan ku iska leeyahay kadib waxaan leeyahay confirm continue
hadda kaliya waxaan ka booday oo skip ku sameeyay step oo asaga uu la soo degi lahaa baan skip ku sameeyay kaliya oo fileka horba u soo diyaariyay filekan waxaan ka soo download gareynaysaa halkan haddaan ku yaradso login ayaa leedahay marka login dhahdo waa inaad ku gashaa marka account-kaaga haddaan halkan kugu tuso sidoo kale waxaan leeyahay meeshaan support kan baan iska bixinayaa okay login ayaan leeyahay waxaan ku galayaa marka account-kayga marka account-kaada ku soo gasho waxaad tagaysaa dhanka support ayarsu support ayaa tagaysaa kadib waxaad tagaysaa firmware download waxaad tagaysaa kadib downloadska ayaa tagaysaa marka downloadkas tagto waxaad dooranaysaa marka versionka adiga aad doonaysid inaad la soo degtid firmwarekiisa waxaan dooranaysaa alahan version 7.4 markaad doorto version 7.4 kadib waxaan sii tagayaa 7.4.3 waa latest versionka haddadan aan darsiga duubayo marka kaliya ku siiso waxaa halkan ka raadinaysaa marka modelka adiga firewalka adiga ay haysato haddaan midka aan labka ku haysto waa 40f saa darteed waxaan raadinayaa marka FGT 40f ayaan raadinayaa haddaan hoos soo dego waa kan marka FGT kan waa 400 waa midkan dambe aan hadda highlight ka saarayo waa midka waa FGT 40f versionkana waa firmware versionkiisa waa 7.4.3 kan baa la soo degaysaa marka kaliya ku sameynaysaa ama kaliya ku leedahay meesha ku qoranta HTTP aad kaliya ku leedahay isla marka wuxuu bilaabayaa marka inuu ku download gareeyo markuu ku download gareysmo waxaad raacaysaa marka stepka hadda aan ku tusay firewalka baad galaysaa dhanka waxaad tagaysaa settingska waxaad leedahay marka halkuu asaga internetka kasoo download gareysanayo adiga baa upload ku sameynaya marka versionka adiga markaa u baahan tahay hadda waxaan ku upload gareynay latest versionka haddii lacal aan u baahno inaan ku upload gareyno version hore loo soo dhaafay sida 7.2.2 oo kale haddaan rabo inaan ku laabto waan soo degsanaya kaliya firmwareka waa ku upload gareynaya versionkii markaas aniga aan ku upload gareeyay ayuu kasoo start gareysmaya marka firewalka hadda aan yara sugni kaliya intuu kasoo kacayo haddana enter dhaho waad arkaysaa start ayuu sameynayaa kaliya waxaa inoo dhiman markuu soo daarmo inaan verification kaliya ku sameyno latest versionkii inuu kasoo kacay in kale marka waan yara sugaynaa haddaan command-igana furo hadda adiga internetka si toos ah kaga soo download gareyso waxaa suuragal ah xasab waxay ku xiran tahay internetkaaga inuu yara daaho laakiin hadda si toos ah baan ugu upload gareynay waxaad kaliya ku daahayo waa rebootingka iyo inuu nidaamka cusub kasoo kaco hadda CLI ahaan saad arkayso waa available haddaan ku galo admin passwordka waa 1 okay wuu shaqeynaya haddaan dhaho get system interface physical port 1ka waxa ay hadda aniga 1 baa ii ah magacan 1 ka dhima lahan markaan qalabka projectiga wada sameyn doono ayaan ku bari doonaa magacyada firewallka interfacekiisa ee firewallka realka ah interfacekiisa okay haddaan 1ka IP ma lahan haddaan galo sidoo kale interfaceka hadda aan kaga xiranahay waa midka gudaha waa LAN 1 hadda enter dhaho IP-giisa waa 200.1 saad arkayso waa midka hadda kusoo galnay 200.1 hadda refresh dhaho waa midka aan ku jirno admin ayaan leeyahay kadibna passwordka waa 1 versionkiisa marka waxaad arkaysaa marka inuu yahay latest versionka waa 7.4 dan save dhaho okay ayaan leeyahay waxaan rabaa kaliya inaan ku tuso statuska inaan yara tagno sida u aragno specific versionka uu hadda u yahay dashboard markaan tagno statuska halkan waxaad arkaysaa versionka waa 7.4.3 sida waxaan ku sameynay upgrade sidoo kale hadda kusoo laabatid system kadibna firmware registrationka settingska maaha waxaad arkaysaa marka versionka hadda aan
oo inoogu shaqeynayo firewallka waa 7.4.3 maadaama firewallka internet uu ku xiran yahay wuxuu siinayaa marka in uu jiro version ka dambeeyay versionkan iyo in kale hadda waxay qoran waa up to date macnaheedu waxay tahay waxa inoo sameeysan waa current version hadda internetka tasti garayo in internet ku xiran kale ping to 8888 internet waan ku xiranahay hadda refresh dhaho iima soo saaraya marka in uu jiro version cusub haddadan la joogo waayo haddadan website waxaan ka soo download gareysanay latest version-kii oo ku upload gareynay qalabka waxaan rajeynayaa muuqaalka inay ila baratay ila aragtay qaabka loo upgrade gareeyo FortiGate firewallka nidaamkiisa waxaan kulmi doonaa muuqaalka soo socda haddii alla idmo